وثقة ku aruurayso daldaloolkii meeshii way soo kuusmaysaa okay quruxda wajigana way macnaha quruxdiina way bedelaysaa oo quruxdaadu way isbedelaysaa xisaabsha markaa naftayda xaqaaga miyaan gudayaa hooyo cambaaro todoba xaj kugu gayo ka xijaab ilaahay naarta ka xijaab ilaahay naarta ka xijaab ilaahay naarta ka xijaab ilaahay naarta بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي شرفت له سو دواada meel walba aad joogtaan asxaabay channelku waa qurux dumar official ku soo dhawow hadii aad igu cusub tahay please subscribe sar like sar si share garay hadii aad nagu cusbeen commentiga iyo like ila wadaag asxaabta qaaliga aad iyo aad jeclahay mar walba soo dhawaada maninku waa maninkiini ha ismartiyeena insha Allah asxaabta qaaliga maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo insha Allah daldalada wajiga ayaan rabaa inaan ka hadlo hadii Ilaahay yiraahdo inkastoo la isoo weydiiyay insha Allah wixii lagu soo weydiiyay waa inaad ka soo jawaabtaa hadii aad taqaano insha Allah marka intii aan kari karo ayaan maanta rabaa inaan idin kala qayb qaato hadii Ilaahay yiraahdo okay aan si gudgalaya hadii Ilaahay yiraahdo daldalada wajiga macnaha qofku waxay ku beeraan ama qofku ku beerma walaac dhanka quruxda ah ayaa ku beermaayo qofka daldalada waxa macnaha maadaama qofkaas noqonayo hadii daldalada ay wajiga ay ka xirmaan ama ay xirmaan wuxuu qofku isku arkaa burooyin macnaha meesha inay kuuskuus tahay finan waaweyn oo dheecaan leh gaar ahaan qofka jirkiisu yahay nooca saliidda leh ayaa ugu daran okay saliid bakteeriyo wasaq ayaa galo oo xiri kara daldalada burooyinka burooyin camal oo noqonaya meesha waxay ka dhigaan daldalada kuwo si fiican loo arki karo oo waaweyn ayuu macnaha u ka dhigi karaa meeshii wasaqa galayso saliid wajiga saliid uu leeyahay wasaqa ku aruurayso daldaloolkii meeshii way soo kuusmaysaa okay quruxda wajigana way macnaha quruxdiina way bedelaysaa oo quruxdaadu way isbedelaysaa waxyaabaha si xumeeyo daldalada waxaa kamid ah in qoraxda badan da'da qofka oo sii weynaato istareelka daryeel xumada maqaarka aad ay u sii xumeeyaan insha Allah inkastoo ay jiraan daawooyin suuqa yaalo oo ayagana lagula tacaali karo dhibaatadan haddana waxa aan rabnaa in aan ogaano waxyaabo oo raqiis ah oo fudud oo haddana markaa dabiici ah oo ka yareyn karo mashaakilka daldaloolka ayaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo oo aad mar walba gurigaaga ka helayso insha Allah waxa ugu horeeya daldalada barafka ee lagu daaweyn karo waa barafku waa daawo guri oo yareyn kara daldalada sidoo kale waxa macnaha u daraya wareegga dhiigga kaleeto ayuu u kobcinaya caafimaadka maqaarka barafka waxa soo binaysa wajiga ama biiqa wajiga ku dhaqanaysa ama barafkaas xoogaa yar saaraysa wajiga biyo baraf leh ayaa wajiga aad macnaha ku dhaqan kartaa maalin kasto ayaa laga rabaa hadii Ilaahay yiraahdo hadii aad wajiga daldalool ku leedahay ukunta qaybta labaad macnaha ukunta ayaan gudbeenaa ukuntana wajiga aad ay ugu wanaagsan tahay ukunta waxa aad macnaha isticmaali kartaa ama lagu yareeyaa daldaloolada waaweyn sanka wajiga garka waxay ka caawin kartaa midabka asalka ah ee maqaarka wayna adkaysaa ukunta waxay kaloo aad ugu wanaagsan tahay jirka saliidda leh haaraha badmadowga wajiga waa loo isticmaalaa ukunta wajiga aad ay ukunta ugu fiican tahay qaybta cad iyo qaybta guduudan waana ku jira channelkayga insha Allah waan idin soo badin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah ukunta aad ay wanaagsan tahay waxaad u baahan tahay ukunta qaybteeda cad wajiga ayaad saaranaysaa kadibna warqad macnaha ukunta qaybteeda cad ayaad waxa soo binaysaa intaad xoogaa qasto wajiga ayaad marinaysaa waa saaraysaa kadibna warqad cad ayaad ku dhejinaysaa warqadaas macnaha tiish ha ahaado kulay tiish waaye aad ku dhejinaysaa sug ilaa iyo ay ka qalalayso kadibna iska fuji kadib waxaad soo binaysaa waxaad soo bin doontaa kadib laba xabo oo ukun cad qaybta cad ayaa soo qaadanaysaa iyo biyaha liin dhanaanta
si fiican ayaad isugu qasaysaa kadibna waad marsanaysaa muddo 10 daqiiqo ayaa wajigaaga ku haynaysaa haddii ilaahay yiraahdo marka ay qalashana iska raaci biyo qabow kadibna intaasna waa suubin kartaa qayb saddexaad sokorta waxay ka mid tahay waxyaabaha u fiican yareynta daldaloolada waxayna wajiga ka qaadaa saliidda badan iyo wasaqda isku qas 2 qaado oo sokor iyo 1 qaado oo saliid ah saytuun ah iyo dhowr dhibcood oo biyaha dhanaanta ah si tartiib ah u mari wajiga 20 daqiiqo ilaa 30 macna 20 ilaa 30 ilbiriqsi ayaad macnaha ku haynaysaa wajiga kadibna waad iskaga dhaqaysaa biyo qabow hal isbuuc ayaad ku haynaysaa aad marinaysaa ayaantaas hal isbuuc ayaad marinaysaa kadib waxaad samayn kartaa kadib sidoo kale waxaad isku darsan kartaa liin dhanaan malab iyo xoogaa sokor ah wajiga ku daliig oo macnaha marka ku daliig lagu leeyahayna macnaha ku xoqin wajiga waa ogtihiin uu jilcan yahay wajiga xoogaa marmarinaysaa waxaad u dhaafaysaa ilaa 10 daqiiqo kadibna waad iska dhaqaysaa saasaad macnaha waa iska dhaqaysaa insha Allah liinta aad ay wajiga u wanaagsan tahay inta shay aan soo sheegay waxa ku jirta liin insha Allah liinta aad ay wajiga u wanaagsan tahay insha Allah daldaloladana looma gaarabo saliidda badan wasaqda jeermiska ayay macnaha nadiifiyaan maqaarka waxaa ku jiro ama uu sameeyaa waxaa loo yaqaano finan okay waxaan usii gudbayaa bakinsoodada sideeda kaleeto iyadana sidoo kale saliidda badan iyo wasaqda iyo jeermiska ayay ka nadiifinaysaa maqaarkana waxay aad ay ugu fiican tahay insha Allah ayadana waxaad soobinaysaa isku qas 2 qaado oo maxaa la dhahaye bakinsoodada iyo biyo diiran si tartiib ah u mari wajigaaga kadibna isaga dhaq biyo qabow okay liindhanaantu waxaa ku jirto aashito waxay yareysaa muuqaalka daldaloolada waxayna hagaajisaa muuqaalka dubka waxayna ka qaadaa madmadowga iyo haaraha iyo wajiga kulli wajiga macnaha ku haro ay ka reebaysaa waxaad isku daraysaa 1 qaado oo malab ah malab dabiici ah iyo biyaha liindhanaanta wajiga marso sug 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo waa 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo inta u dhaxayso kadib maxaa laha wajigaaga mari markaad marisane waxaa laga rabaa markaa wajigaaga marisid adiga intaas 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo markaad ku hayso wajigaaga isaga dhaqdo biyo qabow isaga dhaqdid waxaad suubinaysaa muddo 1 bil ayaad macnaha aad tijaabinaysaa wajigaaga sidoo ku soo baxo waad arki doontaa daldaloladuna way ka yaraanayaan haddii ilaahay yiraahdo insha Allah ugu yaraan adiga maalin kasto muddo 1 bil ayaad wadaysaa insha Allah marka asxaabta qaaliga ah waxaa fiican in aan maxaa lahaay aan isku dadaalno haddii ilaahay yiraahdo okay taa bedelkeeda waxaad isku qasan kartaa 2 xabo oo biyaha dhanaanta ah haddii aad mirtay iyo yaanyo wajiga marso ilaa 10 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo ku celceli maalin kasto 3 goor oo isbuuc kasta muddo 1 bil ah sida aad u hesho natiijo ku qanacso wax kasto aad marsanaysid waxaa fiican in aad muddo 1 bil ah aad ku tijaabiso wajigaaga si aad u aragto natiijada ee kaaga soo baxdo oo maxaa la dhahaa wajigaaga ama aad inaad natiijo hesho laakiin haddii aan dhahno 2 maalin aan wax marinaya 3 maalin wajiga isma bedelin taas ma soconaysa haddii ilaahay yiraahdo marka insha Allah inta idin soo sheegay waa in adiga aad kaga faa'iideysan kartid haddii ilaahay yiraahdo wajigaaga oo daldalool kale wajiga sidiisa wuxuu ugu fiican yahay ama maqaarka marka okay raali ahaada waan kala gooyay marka aad ay ugu wanaagsan yihiin liindhanaantu way u wanaagsan tahay soo idin soo sheegay bakinsoodada way u wanaagsan tahay waxyaabo badan halkaan idinku soo sheegay malabka sidoo kale sokorta sidoo kaleeto marka daldaloolka wajiga badanaa waxaa xirto saliid ayaa xirta saliidaas oo iyadana isku dahaarayso wasaq insha Allah marka saas darteeda saliidaas waxaad uga hortagi kartaa inta shay idin soo sheegay haddii ilaahay yiraahdo intaas shay aad ay ugu wanaagsan yihiin
aad ayayna wasaqda uga qaadaysaa wejigana wuxuu u baahan yahay daryeel iyo nadaafad ayuu u baahan yahay insha Allah marka sokorta saliidda saytuunka waa adiga waxaa isku darsanaysaa dhowr shay aan idin soo sheegay insha Allah intaasba mid ayaad ka dooranay kulligoodna wada suubiso ma ahan laakiin adiga midii adiga markaas heyti oo adiga oo ku fiican adaa garan kartid marka aad baroobaysid 2 qaado oo sokor ah iyo 1 qaado oo saliid saytuun ah iyo dhowr dhibcood oo biyaha lidhanaanta ah si tartiiba macnaha inta isku qasto ayaa si tartiiba aad wajiga u marinaysaa wajiga aad tartiib ugu masaajeynaysaa si tartiib marka ugu masaajeyso 20 ilaa iyo 30 ilbiriqsi kadibna isaga dhaq biyo qabow ayaad suubinay isbuuc walbana hal goor ayaad macnaha sameyn kartaa kaas waa hal goor isbuuc walbo si aad natiijada insha Allah ilaa iyo bil ina wadid ayaa laga rabaa si aad natiijada insha Allah aad uga gaartid waxa wanaagsan marka aad marsanaysid ilaa iyo macnaha aad gaarsiisid bil ina gaarsiisid si wajigaagii aad u dareento in wax iska bedelan in kaleeto marka insha Allah liinta waa kugu soo celinaya liinta daldaloolada wajiga aad ay u wanaagsan tahay wixii dishaa bakteeriyada ay dishaa liinta marka insha Allah waxaan rajeynayaa in aad ka faa'iideysan doontiin asxaabtayda qaaliga ah daldaloolada wajiga qofka hadii uu wajiga daldaloolo ka galo saan hore in kugu soo sheegaybo waxay qofka ku beeraysaa walaac dhanka quruxda ah marka insha Allah haddii ilaah yiraahdo waxaan idinkaga tagi doonaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh